horta adu qaadi boos waxaan leeyahay adigu waxaa tahay macalin dhiblaawaad ariyaa ila qosla caaw waxa weeye waa cali gaaf weeye waaye ciyaal xamara waxay dhihi jireen hebel waa qaraaray ciyaal tiktokna waxay dhahaan hebel hiidkaa gaara horta ninka caadi buu hiidka u gaara horta laakiin yacquubo waxaba ayaan darro ahba hiidku ha ii dambeeye in adoo barxaddii garowa jooga laba wiiloo bax dhulbahantaa ku ilaalinayaan ay kaa ilaalinayaan wiilashii ciise dhuux ka waran anigu laba kelmad bisaan ku leecaawo kugu dheeraan maayo bartay ciise riyoole kaaga tageen baa horta anna kaaga tegaya caawa igu kaa dambayso waayahay haddaad wax ku qaadanayso waaye muuqaalkaas aad aragtaan waa gawaari bannaanka garow gacawiisleyn ciise saas loo soo buuxinayo oo garowa loo soo socdaa warbaahinta puntland ma sheegto kuwa soomaaliduna ma sheegaan xaalka guud ee garowe isinkii diyaar weeye iyo boqorkii waa isla hadleen sidoo kale ugaaskii dishish lamaanta waa yimid ismadii biciidyahan waa imaadeen berita mudaaharaad baa ka jira garowe oo looga soo horjeedo deni iyo imaaraadka haddaan kuusii qishayaa waayahay laascaano maanta duqeyn baahsan baa ka dhacday horta intii ku dhimatay allaha u naxariisto waa dad muslimiina anigu nimankaa dhulbahante nimankan deni sidaan isku hayno iskuma hayno horta nimankaa somalilandna sidaan deni isku hayno iskuma hayno marka xaalkaas si odaytinimaa horta uga hadlaya caawa duqeyntaasaa wax ka leeyahay xilliga lagu soo beegaan wax ka ogahay ilaahay wax garanaye wax ka qiyaasan karaa berito waa 26 juun maalin dambe waa 1 July oo soo socota micna gaari Muuse Bixi ciidankiisa ugu fadhisaa inaan falanqeeyaan rabaa bal adaan idin la kaftamana caawa qadiyad ka wada dhaxeyso waare hore u sheegay ninka waare la yiraahdo waa nin xigmad badan ninka hawaadle waare hore u sheego dhulbahante iyo gado iyo meesha la yiraahdo hiiraan hawaadle iyo imareexaan iyo laascaano meesha dhulbahante qadiyad ka dhaxeysa ayaan rabaa caawa umadiinaan uga faa'iideeyaan rabaa ويان وصل لابتو وحان دا ودورت نكان ميت كاس كسي ميت كان أول تدجيا ميت كموت إيجاد تدجي وحان دي لا وحان دا ودا مغال وصد دوبي نك اللي يرا يعقوب سياد وده قرتو هيت كأد وجارسيسن أسكر لبا أسكري أنت الدنيا صد دبت لجوير باسكو وجواب وأنا قال نكان نقرجوف توي عنا نقرجوفه هرت اللي بدأ أسكري براه برشة وحن كلها هرت أسكر لسكم صوتوا ماشان لسكم تجيدو يعقوبه لاسما أركو لاسما فيري كرو أنا أسكر هاي هو بين حمران كيميد أو ملايين أسكر الجوجان تاس ويه إيه عن كله أيان در كوين مجرتو إن لبويل أو بحر البحنتا أو عثمان محمودة المجال هذه كون إلى علينا أيان وحسن شراب قال إيه نشدو إيه منطقة جمعة هرت الدين أيان بهدل كاسوا هرت بهدل غيرهم مقاتان انت صرتوا ايان در هدا فهمي كرتيد اسكر دمها سو ودان او بحر البانتا تاس قدبان كاليه قدبنا waxaan kaalay laascaano harti waxba sida ninka la yiraahdo deni waxba ku galgalataa moogtahay tuuta inta xirato oo jarmalka tigid lagaaga soo jira deni adiga deni hadda dhulbaanta jeceshiin gooja xadde tan marab inaan sheegay hadda hiidka ku sii gaarayay buutig intuu ku soo jaro gooja xadde ku istaajin lahaa hadii I love you laascaano ay jirto dadkana taas waa u sheegaya niyahow iman maxamuud Saleymaan meeshaas isku haysta dhiiqadaana laascaana iyo Soomaali weyn iyo daarad wax ka gala malaha haday soo kala baxaan waa ka haday kala bixi waayaan waligood kala adkaan jireen intaas weey dhaqanka ii soo har kugu dheeraan maayo meedkaana hadda bax dhulbaanta duuganaysa waxaan ku leeyahay isinkaagi u tag ama sawir ciyalka xafada camal la soo gal ama muuqaalka si ay maanta igu soo duubtay dhaqanka u soo duub isinkaaga u soo duub oo aad aflagaadeysay waad ku tiri isinku sheeg waa ceeb muuqaal soo duub isinkaaga raaligeli markaan ku leeyahay raaligeli waa saxo anigu maxamuud Saleymaan maahi laakiin isinku maxamuud Saleymaan waa ka weeyaa isinku isin ciise riyoolo maaha waa isin Soomaaliyeed weey wariyaa bal eeg maanta ugaaskii mudulud maanta laascaano joogo waa la socota safarkii ugu dambeeyay laascaano ku yimid wuxuu tagay hargeys uu tagay yuhankii Mareykanka gadaal ka riixay waa dhaqan anaga aan ballaarin oo karaamay horta ugaaskaasna waa ugaas Soomaaliyeed isinkan ciise riyoolo waa isin Soomaaliyeed horta markaan ku leeyahay anigu meel ma jirsaday waxay iga tahay dhaqanka in la difaacay iyo diintan jeclaanay horta inta kale waa siyaasad diinaha kugu shaqeysto ha ku karkariyo tigid ha ku jaro adeerada cay ha ku yiraa bari horgal iska noqo anigu horgal ma noqdo inta kaga tagaya
ويا كنا مايا وسودو دونان بحر البانتة ويلكا عيسى ريولنا عيسى ريولنا كلا لقينا لنا وأدون وآخر السبان كموتة هرجلدو ويسكبتان جف قبيل ويا بابور كاس أدركتان يا جوارك لو كدم بسنة وبابور عيسى روحي مع ويسلي ساس لو جسوسي اللي يقول ما قادن منه هرت بابور تاس بحري يمانت إيه عاوة مقالة سوق ليسا قروا بنان كده حتى اللي يقول كل حن مايان لما كان بحشر وعليرا إيه أحمد غيرين أبدين حولها ساس بالوكيرو هرت انت سايدي شيء وربعين تبدأ المدام يسون كوديرنين تي صومال يسون كوديرنين عيسى روح مقال كودا أنا جوا عيسى درسدان صومال نو جينا يا هرت إذا كانوا سي شرقرية ويا قروا معها حد كسوعنا يا قروا وجاز كي دشش له عاوة وايم سو حادري كو متى اسمدي نمانكي بعيدي هنا وايم ماذين إسلامكي عيسى الريولي يا بقركي متقانا بنتلان يا إسلامكي بنتلان باب عيسى الريولي كلمة هني labadaas waa labadano meeshaas waxa weey laandheerayaashu ugu waaweyn markay dhaqan imaadana waa wada hadleen garwa la isugu imaanaya intaas waa update horto dani wuxuu ka shaqeynayaa laabta telefoonka ku dambi iyo imaanin macnaha haday imaadaan qorshihiisa waa iska fashil walow isaga usimadu uusan u haysan mataqaana dad talada iyada mataqaana talada ay ka go'anta uma haysto wuxuu haystaa wax old version ah oo laga tagay qof iyo cod baa loo soconaya boowe laga tagay waaye بريتو حرام مركينا اوغاتان بنامبح وين او لوغا سو هرجيدو دني اماراتكا ايا بري halka ka dhig doona waana saxo dani cid waleysa oo lacagta ku farqaysa oo dheesa meeshan joog adigu baa ku fahmi karnaa warxuu ku heeso warxeelad ku heeso waa imaraadka dadka badan oo reer Puntland oo la qaldaa waxay ku leeyahay Xasan Sheekh baa kuwan wata war ninna imaaraada wata ninna Xasana wata kaba soo qababa yaa adigu ron waayay وان كي قد بياي لاسعانو انتا سابدت بنتو لان اهيد لاسعانو ما انتا الدقين بهسن باكا نعدي قوجة عدي بالغا سو توري دور جنتال داد شعبا قريوهو دي اسكولو حروم اسقارسينيت قوبا عافمات بيكو دعين هورتين تيدي متالاو نحريستو لكن البانتو وحان ليه horta maxay u duqeeyeen nimankan saaqa ama Soomaaliland ma dhahay halkaa because laba rag isdagaalaya tiin horta rag isdagaalaya way isdilaan weyn isduqeeyaan taas ku dheeraan maayo maxaa loo duqeeyay sababta loo duqeeyay maxay tahay ilaan idinkiiba dagaal diyaar u tiino banaanka taalin moogta waxaan rabaa markii inaan idin weydiiyo horta intaan u gudo galin qadiyadan ayaan wax ka dhihi rabay dhulbahante xawaadle iyo mareexaan si daahfuran caaw laakiin intaan u gudo galin dhulbahantow xaalka garowa horta number 1 markay imaado laas aana iyo garowa number 1 ah oo maanta dani fiimo qoojaa sheegtay garowe 5,000 oo BNBF ah buu macawiisleedii dadka deegaanka Ciise Riyoolo ku weeraraya 5,000 gooja cadda waa la keeni karaa hadii dani horta uu rabo gooja cadde baashaas waa kaar marse marka gadaala ka sharxi doonay Muuse bixi duqeyntiisa wuxuu ku soo aadiyay khibradeeda 26 Juno Brita iyo 1 July oo beri dambe iska ma dheera inaan calanka Soomaaliya halka horta laga uusan ka baban la sii tijaabiyo awoodda nimankan harti halkaas maadaama aysan dhaqaaqin qaarkood iskaga baxeen dagaalkii bal horta maxay jawaab bixin doonaa hadii jawaabtiina caawa ay wacneed ama jawaab bixiseen ma garan kara berito laakiin 26 June iyo 1 July inta u dhaxaysa ama labadaas maalin ama laga bilaabo berito xaalka Muuse bixi ma sahlana inuu soo galo magaaladan si aan calanka buluuga looga taagin waa qorshiisa hadaan gudaha u galo qorshiiso qishka idin si horta waa intaas adad foojignaan kartaan laakiin berita jawaabtiisa noqon mar hadaan qishka dhiibay waana la duqeeyay madfacan ku soo dhacay madaafiic waa haysataan wiilal waa haysataan xeeradu waa gooja cadde dagaalka gala awla garaadkiin wuxuu yiri dagaalka gala waa gali weysayna boos dagaalka gala dad dhaana gali meesaan dhulbaantow waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaad daawateen maanta nin la yiraahdo Bixi oo xilka marka laga qaaday yiri qadiyada kado eragan intaan duubta jarta waxaad daawateen Cali Jayte oo xawaadlaha xilka laga qaaday oo qadiyada hiiraan u soo laabtay waxaad daawateen gudoomiye hore baarlamaanka Somaliland oo laascaani yimid oo qadiyadan ka hadlaya midkii gudoomiye baarlamaanka Puntland
oo qadiyada laascaana ka hadlaya tima cadde oo qadiyada laascaana ka hadlaya qadiidahan marka dhulbahante iyo xawaadle iyo gado horta nin waara la yiraa oo cilmi badan oo aqoon badan oo xawaadle ah baa meel soo dhigay intiina wax garata hadda fahmi kartaan laakiin caawa waara wuxuu ka xishoonay baan ku darayaa caawa aniga marka kama cilmi badni waa iga cilmi badan waa iga aqli badan waa nin professor waa landheera waxaan ku darayaa oo waara uu ka xishooday saddexdaas dhibaato maadaama idin haystaan cidda rabtiin u gacan gala waxa idin dheer dhibaatooyinkaas yaa dadka ka saara dhibaatada siyaasiyiin wax barata ka saarta dhibaatadaas siyaasiyiintiinii xawaadle wax bartay iyo kuwii dhulbahantoo wax bartay iyo kuwii mareexaan ee wax bartayna jihadaas in idinka saaraan oo siyaasiyiin kale idin soo geliyeen ama juqraafigu ha idin geliyo ama musiibo kale ha idin geliso ama siyaasiyiin ha idin geliyo waa un marxalad la saari karo siyaasiyiintiinii wax bartay waxay mar walba awrkacsi ka dhigtaan qadiyadii oo dadkii ay xaamilo leeyihiin macnaha dadkiina ma xamili karaan culayskaasay wadaan nin walba waa ku daaranaya haddaan example usoo qaato biixi maanta wuxuu wareejinaya xilkiisa bal ilaahay ku dhaarshay mashaajidka cali guduud iyo daaro nimco fadhiye haddii qadiyada gado uu rabo xilkan xasan sheekh oo ma rabo qadiyadeeda gada u laabanaa markii xilka laga qaado maxaa kusoo beego meeshaan waa ku daarashi awrkacsi cali jeet waa ku daarashi awrkacsi nimankan dhulbaantaasaa lagula daartaa marka waxaan rabaa mid ka fog jignaada xataa denis too wada waa taas dowladda soomaaliya tee wada waa taas axmed madoobe too wada waa taas ana markaa saddexdaas qabiil daacadnimo aan ula hadlaawo dadkooda wax garto la hadli maayo oo waaba fahamsiin waxay ka qaban karaan male laakiin dadkooda caamada helay qof abgaal caam uu leeyahay habargidir caamale dadku caamay leeyihiin dadkiina waxaan idin leeyahay qadiyada SSC qadiyada gado wax ka jira male nin walba bariis kursi ku raadsadaa maalintuu kursiga waayana qadiyadu ku dhuntaa horta qadiyada dadka dhulbahantay ka go'anta waana u jeedaa dhulbahantuuna waa qabiilka kaliya labadan qabiil marka loo fiirsho qadiyada number 1 hadda fahmay dadkiisa way fahmeen dhulbahanta labadan kale waxay ugu duwan yihiin dhulbahantu waa bislaaday aad buu u fahamsaya hoggaan kaliya ka maqan laakiin xawaadle iyo mareexaan qeyr Allah siiye hadda labaas wax ka dhihi maayo koraa ka goosanaya laakiin dhulbahante qadiyadooda yeesan noqon qadiyad xamar leesaga waabsiya jirta xamar leesku waabsan jiro la dhigi jiray wariya shabaab ta maya mi hadda marka qadiyada dhulbahante waxay noqotay qadiyada gooja cadde kuma jirtid harti garabkiisa ma joogto waa been wax harti la yiraahdo ku garab taagan ma jira adiga kulli wuxuu waa siyaasad weey meeshan laas caana iska leh bal ilaahan ku dhaashada yacquub siyaad muxuu ugu degi waay gooja cadde muxuu tagay laas muxuu tagay garow muxuu tagay arbaashan fahmay indhaha kala fura dhulbahantow iyo xawaadlow iyo mareexaanow ilaahay haydan la jiro wax ilaahay ka weyn ma jire ilaahay haydan la jiro siyaasiyiintiina saan nin kasta bariis den imaaraadku wax kaga cunaya gudoomiye baarlamaanka mataqaan Puntland waa kaasa warsan geligiisa war ka heen qadiyada SSC qadiyada SSC wax lagu dhiiqday noqoto bas kaga daara idinkuna ma fahmaysaan waayahay intaasan barnaamijkayga habeenimo ku soo gabagabeynaya